qorar laga helayo wadanka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in hogaamiyaha ka goostay ururka Al-Shabaab ee lagu magacaabo Sheikh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo iminka dhil la galay ama heshiis cusub la galay wadanka Mareykanka heshiiskaasi oo sheegaya inuu Mareykanku ka caawiyo xagga sare oo ciidamadiisa uu ku caawiyo xagga diyaaradaha waxaana la sheegayaa in la doonayo inuu loo tababaro ciidan cusub oo gaadhaya ilaa 3,000 4,000 oo askari waxaana warku inta ku daraya ciidamadaasi inay ka hortagi doonaan ururka Soomaaliya ka dagaalamay la yiraahdo Al-Shabaab Mareykankuna uu korka ka taageeri doono dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Soomaalida haysta ayaa in hogaamiyayaal kooxeed maalinba meel ay ka soo baxaan waxa la sheegayaa inay arrintan wadanka Itoobiya walaac ka qabay hase yeeshee markii dambe ay ka wada hadleen isaga iyo wadanka Mareykanku isfahan ay ka gaadheen in hogaamiyahaasi la hubeeyo hogaamiyahan oo loo hubeynayo si ka madax banaan dawladda federaalka ee wadanka Soomaaliya ayaa caqabad weyn kaga hor iman doonta waxaana la leeyahay dhibaatooyinka ay imika dawladdu muujahayso ayaa inaan wadamada caalamku kaba amar qaadanayna wadan waliba uu ka sameysanayo ciidanka uu doono uu ka qoranayo gudaha wadanka Soomaaliya hogaamiyaha uu doonana uu heshiis la gelayo waxaana taa ka dhigan baa la leeyahay inaanay soo muuqan rajo guul ka keeni karta dawladnimada wadanka Soomaaliya waxaana hore sidan oo kale ciidamo u tababartay wadamada Carabta qaarkood iyo wadanka Turkiga oo saldhig weyn ku leh walow Turkigu doonayo inuu dawladda isagu si dhow la shaqeeyo haddaba waa kuma hogaamiyahan cusub ee la yiraahdo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wuxuu afayeenkii xarakada Al-Shabaab kadib markii ay dagaal isaga u dhaxmaray khilaaf weyni oo dagaal isu rogay markii dambe hogaamiyihii la dilay Ahmed Godane ayaa waxa uu tagay gobolka uu ku dhashay Bay halkaas ayaanu ka dhigtay saldhig waxaanu haystay ciidan isaga ku filan oo ilaaliya hase yeeshee tan iyo intuu heshiiska la galay dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegayaa inuu imika la galay heshiisyo kale wadanka Mareykanka oo doonaya inuu si buuxda u habeeyo waxaana shaki weyn ka qaba dhaqdhaqaaqa socda hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Sheikh Aadan aan idhaahde waxaana la og yahay inay hogaamiyayaashii hore ee islaamiyiinta wadanka Soomaaliya intooda badani u soo xibsiibanayaan xagga siyaasadda waxaana imika xiriir hoose yeeshay baa la yiri oo si toos ah wada xiriiray hogaamiyaha wadanka hogaamiyaha gobolka Jubbada hoose iyo Jubbooyinka ama maamul goboleedka Jubbaland la yiraahdo Sheikh Axmed Madoobe haddaba maxay aragtaa dawladda Soomaaliya dhacdadan ku lidiga horsocodka dawladda ilaa ku dhow dawladda aan la xiriirnay oo la xiriiray telefishinka caalamiga ee Deegaan Channel TV ayaa waxa ay u xaqiijiyeen arrintaasi inay jirto oo ay dawladuna aad uga gowsadaygtay intii hore oo dhan intii muddo abana dabada uu ka riixay Mareykanka yeeshay markii ugu dambeysay Mareykanku uu bixiyay inuu sanadkii walba ku bixin doono lacag aad u badan tababarka ciidankana uu ka caawin doono Sheikh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur dawladda Soomaaliya oo arrinka walaac ka muujisayna uu u laab qaboojiyay inaanu hogaamiyahaasi hadhow ka hor iman doonin hase yeeshee mar haddii ninka loo hubeeyo kolley waxa ka iman kara ciidano masaadaalin karto hogaamiyahan ayaa iminka waxa uu haystaa sida la sheegay ciidan ka badan 500 askari waxaase iminka la rajaynayaa inuu ciidankiisu si dhaqso ah u gaadho ilaa 5,000 ilaa 3,000 inta u dhaxaysa waxaana durba uu bilaabay olole uu ugu gacan haadinayo raggii ay isku kooxda ka wada shaqayn jireen ee iminka ku jira xagga qaybta kale waxaana la sheegayaa inuu mushahar fiican ugu ballan qaaday si ay wax isaga celiyaan si ay uga soo goostaan waxna ay isaga celiyaan haddii uu hogaamiyahani ku guuleysto dagaalkiisa oo uu haddana noqdo mid dawladda ayidsan ayaa waxa laga yaabaa la leeyahay inay noqoto guul weyn oo soo hayatay dawladda federaalka Soomaaliya